بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال مقال كاني وحن ku eegaynaa qaabka ugu fiican oo qofka fiidiyogiisa ugu sameey karo muuqaal ama sawir yar markii intaan la furin fiidiyowga ka soo muuqan doona. marka gashid janaalada qaar waxaad ku arkaysaa muuqaalo ama hadda skan oo kale page-kan kale ee wariyaha aan walaato waxa arkaysaan in muuqaal sawir oo ka soo muuqanayo sawirkaasna qoraal iyo sawirro ay ku yaalaan sidee sawirkaas oo kale haddii aad samaysatid aad u soo saaran kartaa fiidiyowgaaga qaybta hore qofka intuusan furin wuxuu jecel yahay fiidiyowga inuu ka soo muuqdaan wax aad u fiican. Sometimes haddii aadan fiidiyowga sawirkaas oo kale aad u samaysanin waxay noqonaysaa inuu YouTube-ku go'aansado meeshii uu soo saari lahaa muuqaal ahaan intaan la furin ka hor. waxaan rabnaa inaan fiirino qaabka u soo saaran lahayd adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta Android-ka. Okay, waxaa jirta page-kayga aan tagayaa fiidiyoyaasha waa soo dhigtay already. fiidiyowga adigoo soo post gareeyay kadib baad waxaad samayn kartaa kadibna aad ku dari kartaa. hadda markaan fiiri sidoo kale fiidiyoyaashan oo kale fiidiyowga u baahatid baad ku dhufanaysaa kabacdina waad bedelaysaa laakiin meeshan ma aha meesha laga bedelay Arsenal ma aha meesha laga bedelay waxaad ka bedelaysaa YouTube Studio wax loo yaqaano. waxaad tagaysaa application-ka YouTube Studio hadduu ku degsan yahay soo degso hadduu ku degsan yahay waa haysataa fur haddii uusan ku degsanayna waa inaad soo dejisaa. waa application-kan YouTube Studio la yiraahdo ka waa soo dejinaysaa YouTube Studio wax ka soo dejinaysaa Play Store-ka haddii aad isticmaalaysid Android-ka kabacdina isaga ku dhufanaysaa. okay, marka isaga ku dhufatid waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay content xagga hoose meesha hoose ay content ku qoran tahay ku dhufanaysaa waxa ku soo baxaya fiidiyoyaashii aad soo post gareysay. fiidiyoyaasha fiidiyow kamid ah baad doonaysaa inaad bedeshid muuqaalka saaran waxaad ku bedelaysaa muuqaalka saaran. hadda waxaa ujeedaa kan u koobaad waxa saaran suuqa kala iibsiga ee Arsenal ka sawir ahaan buu saaran yahay kuwana sawir ayaa saaran. haddaba maxaa samaynaysaa si aad u soo saartid sawir muujinaya ka hadlaya ka turjumaya fiidiyowga aad soo post gareysay. okay, fiidiyowga baad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid calaamadda qalinka ah ee meesha kore ee ku qoran oo halkaas ah baad ku dhufanaysaa kadibna calaamadda qalinka ee qaybta kore ee fiidiyowga baa iyadana ku dhufanaysaa. okay, kadib waxaad dooranaysaa thumbnail-ka adiga aad jeceshahay inaad ku dhufatid adigoo dhahaya change meesha ay ku qoran tahay change tan adigoo dooranaya waxaad dooranaysaa sawirka aad rabtid inaad oo ka soo muuqdo fiidiyowgaaga ama ka turjumayo waxa fiidiyowgaaga kaga hadli doontid. halkan baad ku dhufanaysaa kabacdina gallery-gaaga fiidiyoyaasha ku jira waa ku soo baxaya kabacdina waad bedelaysaa. hadda for example aniga waxaan rabaa inaan isla isagay lagu soo celinayaa waayo sawirkaas ma bedelayo isla isagay baan ku soo celinayaa. marka toos wuxuu ku geenayaa gallery-ga markaa change-ga aad ku dhufatid kabacdina markii aad soo dooratid sawirrada kamid ah aad doonaysid inuu fiidiyowga qaybta hore ka soo muuqdo intuusan qofka furin fiidiyowga daawanin si qaybta hore ugu soo muuqdo sawir ka turjumaya fiidiyowgaaga waxaa ka soo dooranaysaa gallery-gaaga. sawirkaas sida u sameyn lahayd isagana waa ka hadli doonaa qaybaha dambe ee fiidiyowada aan soo dhigi doono ayaan kaga hadli doonaa. kabacdina waxaad leedahay halkan dhan baad leedahay dhan markaad tiraahdo kabacdina save baad leedahay. okay, already sawirkii aad dooratay inuu fiidiyowgaada ka soo muuqdo intuusan qofka furin halkaas baad ka arkaysaa. waad mahadsantihiin. fadlan channelka subscribe saar si aad ula socotid muuqaalo ku cajab geliya. sidoo kale qaybta commentiga noogu reeb wax alaala wixii aad is leedahay waad u baahan tahay si aan kaaga caawino adigoo aad u mahadsan.